golaha dacwadda ardayda maxadka alwaxyeyn qaybtiisa dumarka ayaa waxay bulshada la wadaagayaan fariin dacwade loogu magac daray xuquuqda haweenka islaamka kooriya kadib inuu alla u dhammaystiray ilaaliyeyna dhammaan xuquuqdooda. haddaba munaasabo fariimaan dacwadada ardaydan ay bulshada ugu soo bandhigayeen ayaa waxay ka dhacday hotel dhooleyr ee magaalada Hargeysa. munaasabad si qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf aad u qiimo badan, xubno ka socday haweenka ducaadda ee jamciyadda Al-Nasiixa. wacyigelintan oo loo wada dhammaa ayaa waxa ugu horeynba ardaydii ducaadda ahayd ay madashan ku soo bandhigeen qodobo muhiima oo ku saabsanaa xuquuqda haweenka, waxaana ka mid ahaa islaamka ka hor haweenku miyay duleysnaayeen, ma hadda ayay dulaysan yihiin oo waxay raadinayaan cid xuquuqdooda u soo rida, iyo qodobka ugu dambeeya oo ahaa diinte ayaa siisay xuquuqda dhammayska tiran haweenka. haddaba su'aalaas jawaabahooga waxaa madasha ku soo bandhigay ardayda majmuucada multaqal waxyeyn ee madashani soo qabanqaabisay. waxaad ogtiin waqtiga hadda taagan in la yiraahdo mar walba dumarka xaq baa ka maqan, ragga la tartama, ragga gaadha, makaanadiina baadha. su'aalahaas inta badan dhagta dumarka ay aad ugu soo noqoto. su'aasha markay caynka tahay su'aalahan isweydiinano ee ugu talagalnay waxa kow ka ah dumarku ma horay u duleysnaayeen, ma hadday dulaysan yihiin, yaa siiyay xaqooda. saddexdaas su'aalood ayaan isweydiin doonaa insha Allah. su'aasha ay walaashayna weydiisay ee ah dumarku ma horay u duleysnaayeen, haddii aan isku dayo inaan jawaab waafiyo idinka siiyo. dumarku horta islaamka ka hor way duleysnaayeen, waliba duli aan xad lahayn bay duleysnaayeen. waxaana taa inoo cadeynaysa aayadda quraanka subhanahu wa ta'ala uu kalaamkiisa ku leeyahay alle wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. mid kamida hadii loogu bushaareeyo gabadh wajigiisu uu madoobaan jiray isagoo ku cindinaya mees weydiinaya niyad xabaasha mise wad iska haysataa. waxa jirtay carabta jaahiliyada ahayd qabla islaami waxay iyagu aaminsanaayeen inaysan gabadhu ahayn wax qiimo lehba, aslan xoolaha ay haystaan ugama duwaneen gabadha. waxay u haysan jireen sida xoolaha oo kale, markay doonaan way iibsan jireen, markay doonaanna way haysan jireen. haddii ay noqoto in dhaxal la siiyana wax nafla lama siin jirin. mararka qaarkood waxaaba dhici jirtay in iyada sida dhaxalka oo kale lagu bixiyaba aslan sida xoolaha oo kale. dumarkeenu run ahaantii imika marka la eegayo diinta islaamka dulli waa inaga dheeryahay oo dumarku ma duleysna, laakiin se run ahaantii waxa duleeyay reer galbeedkan iska dhigay inay xaq iyo xuduud inaga maqan inuu raadinayaan. markaana ay leeyihiin dumarku ha shaqaystaan oo ha dhaqaaqaan oo ha socdaan sida ragga oo kale oo xaqooda ha soo dhacsadaan. runtii waa dulli dhaba oo ma ahan wax inaga maqan oo laynoo raadinayo. xaqayga waxaana la siiyey 1440 sano ka hor, halka iyagu siiyeen 43 sano xaqa gabadha dumarka. anaga 14 qarni ka hor ayaana la siiyay xaqayga. waxa jirta aayad quraan ah oo sheegaysa dumarka muslimaadka markuu ninku guursanayo hadii 4 baa loo baneeyay ninka muslimka inuu guursado, hadii uu isku awoodi waayo inuu ka baqo inuu sameeyo xaq uu sameeyo wuxuu ku gaabsanayaa hal kaliya iyadoo la ilaalinayo cadaaladda iyo xuquuqda ay gabadha muslimadda ah leedahay. saani ugu dayacmin isagoo 3 kala raadinaya xabadda koobaad. gudoomiyaha majmuucada multaqal waxyeyn Muna Cusmaan Maxamed ayaa faahfaahin ka bixisay bilowga dhismaha majmuucada multaqal waxyeyn iyo sababaha ugu waaweyn ee loo aasaasay isla markaana ay ka shaqeyn doonto. waxaana ka mid ah hadaladeedii. multaqaha waxaa la aasaasay muddo sanad imika ku dhow uu aasaasan yahay. intii multaqahu aasaasnaa waxyaabihii uu qabtay waxaa ka mid ah inuu muxaadaraad cilmiya u qaban jiray. muxaadaraadka uu qaban jiray waxay ku koobnaayeen intii hore markaska iyo xaafadu ku dhex yaalo, laakiin qorshayaasha multaqahu lahaa intaa way ka ballaarnaayeen. waxaana ka mid ahayd inay bulshada u soo baxaan u soo faa'iideeyaan, ha noqoto muxaadaraad, ha noqoto duruus ay siinayaan dadka waayeelka ah ama aan aadi karin meelaha wax lagu barto, ha noqoto inay qabtaan nadawooyin sanadkiiba 2 jeer ama 3 jeer ka baxa baraha bulshada iyo dhammaan bulshadaba. qorshayaasha multaqaha kale waxaa ka mid ah inuu bulshada wax taro isagoo u adeegaya bulshadiisa xaq cilmi iyo xaq dhaqaalaba. qorshayaasha insha Allah Rahmaan uu rajeynayay multaqahu inuu gaadho waxaa ka mid ah inay
soo ururiyaan dadka baahan wax lagu kabo tusaale ahaan sadaqooyin oo kale na siiyaan ama ay ka soo ururiyaan walaalaha muslimiinta ee wax baxsanaya kadibna ay ugu tabarucaan ay ugu deeqaan dadka baahan ee ku hareeraysan magaalada in cinda ka warhaynin marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadani ayaa iyaguna dareen farxadeed ku ammaanay majmuucada multaqal waxyeyn ee u kacday in ay fikir iyo dadaalba geliyaan dacwadda islaamka intii munaasabadan ay socotayna waxa iyaguna riwaayad ka turjumaysa sida dumarka xuquuqdooda loo baahdilay islaamkuna u dhowray halkaasi ka soo jeediyo xubno ka socday ardayda markaska alwaxyeyn gabagabadiina waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey qaar ka mida mas-uuliyiintii ka socday jamciyaadka dacwadda dumarka ee al-nasiixa wahiib saryaan warbaahinta nolosha islaamka hargeysa.